kalamaan ma dhageysid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambana su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino adduunyada warkiyo wacaalka hagee waagii baryaba warsidaha ka eeg wixii soo kordhiyo siduu yahay waqtigu wareedhaa markaan heestaas iyo salaada caadlaya caashakiin maqlo weriyaa wax la yeelan xasuustaaye yaa la xiray maanta yaase la dhaawac weriya waa ruufiyaanna in layska qabtaa waa fiicanta warniyow runti inoo la sheego ruufiyaanna ma sheentay war ninkii helaa talawacan hele maqalwaanado waxyeellada u diid wariyaha xaq dhowr tixninkii helaa gabay wacan hele maqalwaanadood waxyeelada u diid abwaanada xaqdhoor war abwaanada ayagaa iscaleema saaray maanta waxaa laga dooday sharciga saxaafadda war xeerka warbaahinta golaha wasiiradu waa ansixiyeen golaha shacabkuna waa ansixiyeen qodobo badan oo saxaafadda caqabad ku ahna waa ku jiraan weriye cabdalle axmed muuminna wuxuu yidhi saxaafaddu haddaysan ka hortagin xeerkaas ma sii jiri doonto araada horaa waxaa loo yidhi biyo intay ku soo gaarnaa laiska moosa ee saxaafadda ma iska moosaano war xeerka saxaafadda markii la akhriyey qodob kastaa wuxuu ka bilaabanayaa dembi wuxuuna ku dhammaanayaa dembi waxaana la leeyahay wariyuhu hadduu dembi galo haddii dembi lagu helo haddii maxkamaddu dembi lagu saaro marka goormaa saxaafadda iyo wariyaashu dembiga noqdeen aana holeshin walmooshiidin gogol dembiyaadaha tilan fidsadoohaye aadin la aadin hooy aan wariyaasha waxaan dhihi lahay markaa camal maayada mooya ku jira aan dhahnaa unuka sharcigaasaytii wax badanaa ku jira ee alla fiirsado been badana maxaa mooya badgeeya annanka badanaan ku tumanahay war adeero mashaqadii muuse handaraab ayaa haddana idin soo gaadha idinkana oo saxaafaddii baa la laabi rabaa miya war qodobka ugu darani waxaa weeye guddiga loo samaynayo saxaafadda 9 xibnood weeye saxaafaddu 3 ay ku leedaha la yidhi xeerkana ayadaa lagu maamulayaa baa la yidhi marka waxaanu malaynayaa saxaafadda xaalkeedu inuu noqon doono yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dawlad kale ma joogteen horta idinka xaadhib idin gelsa xeerarkan saxaafadda haddii la ansaxshay idinkuna iskama ansixisiino xaa idinkaga hallaabaaya mahaas ilaa waa ansaxe war saxaafadda warkeeda waxaan u fahmay golihii wasiirrada waran iyo gaashaana ah mar hadday ansixiyeen golihii sacabkuna ansixiyey hadda ay aqalka sare hor taallo bal guddoomiye cabdi xaashi iyo senatarradu inay ka hor tagaan in laga dhur sugaya ilata iyagaa dhiig ku dambeeyaa haddii sanatarrada dhiig ku jiro golaha sacabka ma biyaa ku jiraa tiriheen war aqalka sare nabadii nolol ma ahan warayii gaashaan uma kala baxaan war maya aqalka sare sida shacabka ay dulman yihiin oo dastuurka kuma jirtaan baa la yidhi iyaa war samataroo soo dhowaaw maxaa loo dhahayine hooy aan waxaa ka cabsaa aqal sare si u fiifiirihaayeen saxaafaddan ofsayd in lagu fasaxan ka cabsaa war saxaafadda haddii la kala jiro malaagaada ma iska gaadatido maxaa kaa galay aryaadhaha aqalka sare waxaan dhihi lahay rigoore ama benalti mugay ku hor yaalliin waa la dhalshaahiyo idinka baxsan tani war anigu waxaan dhihi lahaa rigoorahaas hadduu ka fakado aqalka sare madaxweyne farmaajo inuusan saxiixin war waxba ha baqinina madaxda sare xilligay mucaaradka noqon lahaayeen baa dhow saxaafaddana godob ka geli maayaan oo kama maarmi doonaan bacdeen meel ay ka qayqaylayaan ay rabaan mayno magee bannaanka joogsadaan war weriye ayaanla xuseen cabdi wuxuu yidhi kalamaan waxaan ku fasiray waa yeel hortiisa caanaha loogu barxaa koobiga ka soo hor jeedana waxaan ku fasiray waa yeel caana masaasad lagu siinayo sidai carruurtii warnimiya war mahaytana arrintii galmudug hallama kaaleytiya la eri odayaalkii hildhibaanada ha hulin lahaayeen lahayolafadoohaya la eri ka dambena hildhibaanada ha hulaayanga la eri wadaadadiina iyooga dooni mayna leeyiin yaa hirti dhahfidhan iyo mawla'i musharaxiintii haano ka mid aho odawaayanka horeeyon mayba leeyiina ciidamo etoobiyaan ee wana hanii wareejiya laha aruursaday doorashada sidiitii koonfur galbeed amal la afgambiyo lafadoohaya leeyiin ayadoon hal musharax la xirin wax suurtagalaya ma lah reed halaha hiiro maysay laa hiirnee galmudugudahay usbeela asaljeen dhaaytiyo gabalkii annagada doonta may haay kasaasan ahe wallaahi aan la yeelaynin oo bilaahi la yeelaynin anaga etoobiyana loo kiraysanahayaa asaan lagu kor wareejinahayaa xilka aan rabnayna waana la kala wareegayaa wallaahi sidii koonfur galbeed aan yeelaynin oo bilaahi
warajara war madeeyow dagaal kama daro aad iska ilowd warwara jarana maxay ahayd madeeyow ma garan reer galmudug gabaygan aad sheegtay warnimayo horta anuu qayb iyo xukun waxa la yidhaha afkaan ka maqli jiray laakiin hadda midda galmudug ka socota si baraatikaala baan ugu daawaday war jenaraal galaal wuxuu yidhi itoobiyaankan laga qaylinayaa waa ciidan hore u joogay lagu bedelay ee wax cusub ma aha war xildhibaan cabdixakiin wuxuu yidhi ma jiraan wax ciidamo itoobiyaan oo dhuusamareeb la keenay waana ciidamadii hore u joogay marka ciidamadu dhaqdhaqaaqyo waa samayn karaan madasha xisbiyada qaran oo xogeeyo hayna wuxuu ku eedeeyey inay ka been abuureen ciidamo itoobiya in la geeyo dhuusamareeb war hadda ka hor xilligii kacaanka waxaa la yidhi noolo kastoo qalad geystaa waa in la ganaaxaa marka nin baa beertiisii ratigiisii daaqay waa soo hoggaamiyey saldhigguu ku soo xidhay wuxuu ratigaani qalad buu geystay beeruuna boob ku daaqay ha la ganaaxo kadibna ganaaxii beerta uu daaqay ayaa ninkii lagu xukumay beerta iyo ratigana isagaa isku lahaa lacagtii ganaaxa laga qaada ratigiina waa wad marka xildhibaan cabdixakiin ninkii ratigiisa eedeeye u ega war cadaalad bislaatay ahayd arrintaasu annagu marka itoobiyaankii sufaan rabnay ama itoobiyaan nabadii nololahaan rabnaa hunkoolkii galmudugow geeka hunkool rasme eeta war itoobiyaan meesha weligood waa joogi jireen dhuusamareeb inta dhaafaana ceelbuur iyo galcad tegi jireen maxaa ku daatay kuwaan warnimiyaw mayleeray eeranlanki ama oloysa ka shakiisanya shaki iyo ka jiro ciidanka mbubuuniyo hayaan warmada isaaqow iiraan war kama hayside dibadbaxyaa ka socdo war beentaan iska daaya iiraan 4 sano ka horan xiriirka u jarna dhuusamareebna ma tegi karaan war hiiraan daadadaa ku fatahaye banaanbax kama jirin alaayadan itoobiyaan amba hore ha u joogo amba haddaan ha yimaadeen cabdiraxmaan odawaay wuxuu yidhi doorashadaanaa lagu afduubaa ciidanka la keenay muga anugu waxaan intaas ku dari lahaay itoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedaayeen itoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedaayeen war qoorta kareen wax qaylo laga haya weli ma jiraan aryaa naga shibda qoorqoor ilmasaga biyuugu socdaan warwariye baaf wuxuu yidhi guura galmudug waa uu ka tanaasulay war adeer war ma haysaane faysal cali waraabe wuxuu yidhi anigii axmed madoobe waa kulannay buu yidhi anigiiyo guddoomiyaha onelefna waan kulannay cumar cabdirashiidna waan la kulmay buu yidhi bacdeen soomaaliyan ku soo naqaynaa masiri war niyo dhegaystaha naga horboodine waxaan ka wada hadalnay buu yidhi soomaaliya sidii loo badbaadin lahaa oo soomalilanna waabu iska iloobay arqowdhanow faysal liinti aad sheegi jirtay ama xabsiga ku cabir rabaahe war faysal wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo itoobiya wuxuu siiyey 4 dekedood marka dekedahaas waa in laga badbaadiyaa buu yidhi war madaxweynaha soomaaliya asagoo beer aadisaabo ku talaalisi war adeer faysal waa waalan yahaye dekedayada berberi kuma jirto aqliga owr guuraysa allaha kaa saaraan maqli jiray ma dekado iyo beeraa laisku bedelaa haddana war anigu waxaan dhihi lahaa hor in loo dhaqaaqo dekado jiridda loo dhaabo ama li'idu waa dhibi inaan xidhanno dhaaraanka ganacsiyo isdhaafiyo inaan dhuranno faa'iido dhirif kama qabo waa ha koro jeer dhaqaaluhuye dhabbehe la mari waa su'aalaan ku dhiiraday anuu faysal midaan kula yaabana soomaaliya waa ka go'nay iyo soomaaliya badbaadadaan ka wada hadalnay siduu labadaa isu waafajiyaan kula yaabana gogol fidsiyow ka wadyaa waa soo socoyaa guddoomiyaha maxkamadda sare miyaa laga dhigaa aw ku falaa wasiirka maaliyaddaa laga dhigaahe war waa injineer wasaaradda howlaha guudaa loo dhiibaya war waa war badan yahay wasaaradda warfaafinta uu ku fiican yahay war waa somalilan darbiyuur ah war hadduu rabo ra'iisul wasaare ku-xigeen baa laga dhigaya war maysiine shirkii igad ee itoobiya ka dhacay madaxweynihii maanta ka soo laabtay ma ka soo xanaaqiyey war nikaahi usanseediya dhiiya ka aale awal inuu aaday goormaa la sheegay war mucaaradku waxay dhaheen madaxweynuhu meel u aado itoobiya u jecel yahay waryaa maalintii feebaraayo doorashadu dhacaysay itoobiyaan nacaybaa codkii bedelo madaxweynuhu ku guulaystay goormaa caashaqa itoobiya nugu dhacay waryaadadan warhayna warmoogaha tihiine itoobiya isbeddela ka dhacay aryaadaha waxaa layidhi doqonimihii lagu dagaalay ogeed ee meeshi lagu heshiiye ma ogeyn mugga itoobiya abiy axmedaa madax ka ah waana nin oromaahe tigree ma aha warwarka waa ku dhex waalateynaya dhegaysta igad waxaa guddoomiye ka naqata suudaan warwar maysiine xisbigii cumar albashiir ee suudaan xukumi jiray waa la kala diray aryaada hore waxaa loo yidhi nin iyo xoolihiis kalema heraan warwar ma haysiine guddoonka baarlamaanada afrika jabuuti ayaa ku guulaysatay warwar ma haysiine soomaaliya arrin weynaa ku soo korortay maroodi ma ka weynta eelishalan guuroeleerey warwarkaan naga dhex gelin inaan dhegaysta gobolka sool waxaa la yidhi dahab laga helaa 2 beelood ku diriraysaa oo ma qaybsadaano 4 beelood iyo bar miyaad u
u qabtaa war wax la qaybi karo waa ka badan oo dhulku iska daadsan yahay leerin dhageysta allow mahaas yaa igeeya war adiga cimriba kuma dhimanaan dhageyso marka waxaan la yaabanahay haddii shidaalna loo soo saaro saan ugu heshiin doono yaan ugu heshiisiinaya war shidaalka farbeeloodii balaan qaybsadaana aryaada dahab meel cidlaa iska daadsan miniin lama beeloodo walaalaahu ku heshii weysa xabad shidaal yaa naloo qodinaha nala ka dhaafo waa ku leehaynaahe warniyo dahabkan aad sheegaysaan bangiga jumhuuriyadda somalilan ayaa loogu subayaaba war soomaaliyu weligeeda meel cidlaahoo bannaan isku layn jirtay hadda hadday dahab ku dirirtay dagaalkeedu sababuba leeya war shidaalka ugu horreeya galmudug waa laga qodaayo naga aamus dooni mayno wallaahi aan laga qodayno ibilaahi laga qodayno reer hebel dhulkoodii miyaa laga qodahayaa war cabdullaahi xasan waa kii yidhi laba kastoo rabitaankoodu midoobo dagaalka filo war ma haysiina london war aan ku farxaan ka maqlay masaajid ku yaalla bartamaha magaalada waxaa loo fasaxay aadaanka mikrofoonadii bannaanka ahaa iyo ambarfaayrada in laga addimo aashuunku addin waa dhammaaday addin yaa bilaal miyaa bilaabatay war london waxaa ka dhacay tooreel isku dila toorey boo dagaal jooy london nabadaha ka dhow war masaajidka soomaalidu ku heshii weysay denmark uu ku yaal war ma waysan xishoonayn dadka soomaalida oo denmark ku diriraya masaajid yaxmar ku yaalaba soomaaliyu ku heshii weyday xaad sheege war adeer ictiraafka had maan la siinaysaan war ma haysiine baar dheere shacab iyo shabaaba ku dirirayo war shacabka ha loo hiiliyo shacab ha loo hiiliya xaytaa ciidamada qalabka sidayaa u hiiliye war dawladdu waa nacab tahay shacab shabaab la diriraya war maasaa sacuudiga loo dhoofiyaa la yidhi candalaa curatay maa tirahayd war arigii maxay u diideen he waxaa la yidhi gobay dadaan aqoon baa beryahan laga dhegaystaye ansakaygu waa lama huraan goor iyo ayaane hadal iyo qisiyo sheeko waa kalama maarmaane haddaan reer miyiga nahay waxaan caadi ula yaabnay qaarkeenna toos ula qosloon maanka geli weynay xalay iyo habeen horena aan jiif isaga dhaafnay faransiiskii maali ugu tegey baadilka iyo xoogga oo yurub ka soo duulayoo xadayay maalkooda oo gumaysanayo shacbigii qaar ka mida laayey dawladdeennu xaajada markay aad u falanqaysay war gumaadka joojiya hadday dhihi aqoon weysay tacsiday gumaysi u direen sow fashili mayso gardarrada caddaanka ah hadday madaxdu taageerto intaasaa ku soo koobaya ayaanan sii badin war uhuru kenyatta wuxuu yidhi ciidamadii Soomaaliya way joogeen inta shabaabka dhamaanayo war yaa wuxuu yidhi iyo waxay tiri maxaa ugu mashquulsan dalkiina u war soo sakaraadka alla idin fududeeye